السلام عليكم أحبابي المول بأجوبتان وادي سلامي كسود وادات تطوري سجيا جنال كيغا ديات كعصب تايمي سبسكراب سار ديات كعصبينا موقع كلا كريب محي شير كريب أصحاب تادا موضوع إيمان كساد سيها نستا فاسولية فائدوينك كارك أي نور ليضحي إن شاء الله بإذن الله كريم. haddaba cunista faasuliyadda waxaa laga yaabaa in aad ka aaminsan tahay faasuliyadda ama haragowga in ay tahay cuno ka mid ah cunooyinka caadiga ah, laakiin waa cuno ay ka buuxdo faa'iidooyin caafimaad sida kor u qaadidda garashada iyo xasuusta, ilaalinta caafimaadka wadnaha iyo hagaajinta dheefshiidka. haddaba waa maxay faasuliyad ama haragow wax loo yaqaano? fadlan ha ilaawin inaad channelka subscribe inoo saarto, muuqaalkana inoo like garayso. insha Allah waa nooc ka mid ah noocyada digirta, waxayna u kala baxdaa noocyo kala duwan. faasuliyadda waa cuno caan ka ah dunida oo idil, waxaa lagu amaanaa kala duwanaanshaha iyo sida ay u fududahay in la beerto. haragowga waxaa afka qalaad haragowga waxay cuno sugan u ahayd ciidamada badda ee Mareykanka. ciidamadaas waxay u ahayd cuno caafimaad u leh isku dheelitirka qiimaha nafaqada iyo borotiinka ku jira awgeeda. haragowgu wuxuu cuno sugan u yahay dhaqamo badan, sidoo kale waa cuno aan dhuminin qiimaha nafaqada xitaa haddii la kaydiyo waqti dheer. haddaba faasuliyadda faa'iidooyinka caafimaad ee ay leedahay ama haragowga uu leeyahay waxaa ka mid ah xasuusta iyo garashada. wuxuu ka hortag u yahay tuubada dareemaha iyo dhiig-yarida. waa maado si wanaagsan u samaysa habka dareenka jirka. hoos u dhaca waxaa si toos ah loola xiriiraa xanuunada sababa burburka maskaxda ama burburinta maskaxda. in maskaxda burburin sida xanuunada ku dhaca maskaxda ku dhaca ayaa ka mid ah inoo kala qaadin. sidoo kale waxaa ka mid ah vitamin B-ga laga helo haragowga, waxaana caawiyaa kor u qaadidda qaar ka mid ah fariimaha neerfaha ee lagu talagalay xasuusta iyo garashada. sidoo kale waxaa ka mid ah ama ay sare u qaadaa haragowga caafimaadka wadnaha. maadada ku jira haragowga ama faasuliyadda ayaa ah maado aad ugu wanaagsan ka hortagga cudurrada ku dhaca wadnaha ama wadna xanuunka. sidoo kale maadada magnesium-ka waxay ka shaqeysaa yareynta cadaadiska iyo adkeynta xididada dhiigga qaada. sidaa awgeeda waxaa yareynaya cadaadiska dhiigga ee maraya xididada, waana arrinka ka hortagaysa wadna qabadka ama wadna xanuunka. sidoo kale faasuliyaddu waxay ka hortagtaa sonkorowga ama macaanka. cuntooyinka ay ku badan tahay maadada fiberka ayaa waqti dheer lagu ammaani jiray in ay saameynta wanaagsan ay u leeyihiin qofka la nool xanuunada sokorta ah. haragowga wuxuu xakameynayaa heerka sokorta ku jirta dhiigga. sidoo kale wuxuu kor u qaadayaa nafaqada laga soo nuugo dheefshiidka. faasuliyadda waxay isku dheelitirtaa heerkulka hormoonada insulinta iyo heerka sokorta dhiigga, waana cuno ka hortagga ku sameyn kartaa ka hortagga cudurka loo yaqaano
macaanka. Sidoo kale faasuliyadu waxay kaalin weyn ka qaadataa dheefshiidka in ay hagaajiso. Sida aan soo xusnayba, haragowga waxaa ka buuxa maadooyin fiber ah oo maado muhiim u ah caafimaadka dheefshiidka. Fiberka wuxuu culays ka dhigaa saxarada si jirka uusan ugu dhicin calool fadhiisi ama calool istaag sida u taqaanaa. Dhaqdhaqaaqa saxarada kadib kicitaanka habka dhaqdhaqaaqa socodsiinta cunnada ka qayb qaata haragowga. Ka hortagga xaaladaha halista ah ee ku yimaada habka dheefshiidka. Kansarka ayaa ka mid ah mindhicirada waaweyn iyo boogaha caloosha markaas ku dhaca. Haragowga sidoo kale wuxuu wanaajiyaa ama kor u qaadaa caafimaadka qofka. Sidoo kale wuxuu ka hortagaa in ay markaasi kansar ay imaado ama waxyaabaha markaasi abuuri kara kansarka. Magnesiumta waa macdan aadan inta badan maqlin, laakiin wuxuu ka qayb qaataa ama wuxuu ka qayb yahayba maadooyinka ka hortaga fayruska ama kansarka cudurka loo yaqaano. Waxaa ka mid ah kabarka, waxayna qayb muhiim ah ka ciyaartaa kicinta qulqulka dhiigga. Sidoo kale waxay kor u qaadaa dabacsanaanta kala goyska iyo joints-yada kale iyadoo yareynaysa cadaadiska wax dhaawici kara. Sidoo kale kabarka wuxuu markaasi ka qayb qaataa sidoo kale koriinada iyo dayactirka jirka. Markaasi waxyaabaha laga yaqaano haragowga waa heerka sare ee borotiinka ee laga helo cunida haragowga ama faasuliyada. Sidoo kale haragowga cunistiisa waxay markaasi waxtar u leedahay, faa'iidooyin badan u leedahay. Markaasi wareegga dhiigga oo fiicnaada, si fiican inay dhiigga u wareego, dabacsanaan qulqul dhiigga oo fiicnaada. Waxay u wanaagsan tahay quudinta xubnaha kala duwan ee jirkeena iyo habsamida u socodka shaqada jirka markaasi ay u socoto. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkaani. Fadlan haddii aad ku cusub tahay muuqaalka, subscribe saar channelka, muuqaalkan la garay una share garay asxaabtaada. Wixii markaasi su'aalo qabtana nagu soo gudbi qaybta commentiga ee YouTube-ka, ama waxaad nagu soo gudbin kartaa qaybteena Facebook page-ka ee Dr. Rajiya Abuukar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada.